ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قدوميها قبل كتقدر محمد حمسة محمد ولا عليه دغا دقمضة برعو محمد يوسف مراد شرائق كلا دوان دمانتود hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah shaqaalaha wasaaradda isuduwaha iyo agaasimayaasha iyo dhammaan saraakiisha kale bahda saxaafadda mulkiilaha hoteelka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda taxiyat alislaam ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale subxaanahu isuduwaha iyo wasaaradda shaqagelinta ee gobolka Togdheer run ahaantii waxaan idinka mahad celinayaa gabi ahaanba intiina soo ajiibtay inaad naga ajiibtaan martiqaadka aanu idinku soo dalabnay si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa madaxda gobolka iyo tagolaha deegaanka bulshada iyo qoysku waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa hay'adda Save the Children oo gacan weyn ka geysatay markastabana gacan la barbar taagan waxaan leeyahay jazaakum Allahu khayran ila la iyo ina baba hadiyo gooraale shacbiga gobolada barigu waxay ku cawdaan ma soo dhaafto hargeysa xukuumaddu wax walba hargeysuun baa laga qabtaa sida la ajligeed mar haddii aanu ka qabanay sanadka yagii koobaad ee 2018 ee shaqa abuurka gobolka Togdheer magaalo madaxdiisa Burco oo ah caasimadii labaad ee qaranka Soomaaliland ahna hooyadii Soomaaliland inaanu gaarsiino baahiyaad kasta oo ay bulshadu qabto wax kasta oo mas'uuliyadda nasaarani ay nafarayso ilaa min badan ilaa iyo misayla maantana tiibay ka mid tahay jideeyay xeer nidaamiyaha koobaad qodobkiisa 19aad waxa uu jideeyay inay ka mas'uul noqoto ilaaliso abuurto curiso shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku sida darteed annagoo ku duulayna waajibaadkayaga qaran fulinayna amaawiirta madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi waxa aanu xafiiska job centerka ama shaqadoon oo xaruntiisa koobaad ama xarunta ugu weyn ay ku taalo caasimadda Hargeysa ayaa waxaanu xafiiskii labaad ee shaqadoon ama job idamka ee baka dhigo iyadana berri baanu furi doonaa wuxuu tareerin garayn doonaa wax allaale wixii shaqo ah ee balse waxaan jecelahay inaan idin iftiimiyo wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska muddadii sanadka iyo barka ahayd ee ay xukuumadda maanta jirtaa talada sahlaya shaqagelinta ama sidii shaqo loo abuuri lahaa waxay wasaaraddu xil badan waxaa ka mid ah xeerka shaqo carbinta siyaasadda shaqo carbinta waxaa ka mid ah siyaasadda iyo xeerka hawlgabka waxaa ka mid ah waqtigii la ururinayay xogtiisana wasaaraddu ay la soo wadaagtay aqoon-yahanka iyo sharaa'iga gobolka Togdheer iyo inuu u diyaar garoobi karo oo la tababar qaadan karo sidoo kale hawlgabku wuxuu sahlayaa inuu dadka waayeelka faa'iideysto bulshada iyagana xuquuqdooda la karo way daaleen run ahaantii waxay u baahan yihiin in la nasiyo isla markaana waxa ka faa'iideysanaya boosaskooda dadkooda loo faa'iideeyay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa shirkadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay oo run ahaantii aan leeyahay waxay shaqaalaysiiyaan in ka badan inta maanta xukuumadda ka shaqaysa ama in ku dhow ayay shaqaalaysiiyaan
ويا شرائع قاعد كلولي هاي وهي كهر هنا قاعدة حكومتها runtii waan ugu mahadcelinayaa waayo gacan bay ka geysteenoo waxweeyaan wax kasta oo ay ku kaabi karaanba way la barbataagan yihiin xukuumadooda balse waxaan jecelahay inaan maanta mid ku dhiiriyo iyagana ay hoosta ka xariiqaan kaas oo ah shaqaalahooda in ay u dalbaan si daafuran oo ay ka muuqato transparency ama maxaan sheegay suuqyada ee aan lagu shaqaalaysiinin من وراء الستار أو أنا جاي مقولة يعني شرائع كلام وشدها بيصوصات كسر صحراء محشة جاي عم حريدا رنتي وحاسود وحلوك هي شغالها القاضي ليسان إن كبكتان من دافورا أو أضحي السيسان سلما كان تطلقه إذا كانت تصعيا إذا في عن وأيو قف وجوه هي شغالي هي أو شقيه لكن ما كان قف ويرجع استقرته وبمولي حافظه ويقوم يستجوبه وما هيستوى إلا لا حساب تغير أما إنه واجبات كيسة صحة وبطور وضدك كلنا فيه كل ما وحيدا تحاولت وبناء جديدة تيمبرو وبناء جديدة تيمبرو معناه وهو كل ما شغالين والقرصان ضدك أنت وضدك بعض شغالين إنسان mahadnaq bay wasaaradda shaqagelinta ugu haysaa waayo wax kasta oo shaqaa oo dadka ka suura gala waxaan ugu mahadcelinaa inay waajibaadka iyagii noo fududeeyaan oo qabteen sidaa darteed mar haddaad kolleyba shaqaalaysiinaysaan oo shaqagelintii aad ku jirtaan maxaa ka wanaagsan in la yaqaano shirkad walba inta qof ee u shaqeeya inaad gashaan heshiis inaad agreementkii aad la gashay koobi uu ka yaalo wasaaradda oo ay hadhowto دورك تحي إسقابل كينا أما إسقابل ماشيين إنه وزارة وحكة أوكتها سلادتي ومضنيا وحمد الله هاي كل هذا سدا كل هذا إن أدرك أبو تنشقو إن هذا كان بيدا فرن أو حيسيو أو وطرتمو إذا كنا أدرشان قف أقوال أو شقدين أو تمام واجبات أتدور سنة دمسترا وزارتنا أي كحسابتو قررنا ويدي كل حيو ويدي كفر ذريو وحكستوا على صوباتان وحيابها عظمتين أدي أقبل ما تسنتيه مرة بعدي مصد حربا جدا ما أنتو وافريتان وفر مضبع أي هكا كشي بدونا مع الميتا مدى هياش برنامج كشركة ماتا وحنجعلها إلي وحو يدي كصوبحان وددكينا واحترام waxaan jecelahay sharaaiga gaarka loo leeyahay inay ka qayb qaataan sanduuqa dhaqaalaha loogu ururinayo dhalinyarada si looga saaro shaqo la'aanta ee uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu ku riday sanadkiisii koowaad ee uu xilka doorashada ku guuleystay kursiga madaxtinimada ee uu ku riday $200,000 waxaan idin leeyahay mudanayaal idinka ayaa ah tijaaradii uu qaranku lahaa idinka ayaa qaranka ka warhana qaaday وفكرين بالفور منقضو وحنا نذكر صنينا إن أتكلم بعضتان والصندوق يكون غيبتي للإنسان بإذن الله تعالى سيدك أنت عظم شغال سيد وياني أنت كلنا شقوي وهو أبوري كرو حديث لك إلهي كريم وزارته حكوا عن ميل كستوى على مبهر كرو يعيد كستوى على مبهر كرو إن أنه أبورنا قام في أيضا يرد الرئيس سوماليلاند أكاديمية وحبرتي كان سكوت كفاية أي وهن لها شقاء أديات بذمات سنته ما أنت وحلو ترى وعشرة وعسلها هاي عشروية ما أنت ضد ويسوميه هذا كان تاسع تعالى هنا إذا كسر بإذن الله الرحمن إلا يدور ماذا قول من الجونة هذه بقدره أماتي وحنك كتير إن أتفكر كينا صور مكتان كنا فايدة ستان فرصة وزارتنا أي وزارة دينية هاي ومرة بعام بيعرضنا هاي وشغيتينا والمأسنتين والسلام عليكم وبالتوفيق.